anigoo Cabdicasiis Gardale dadkana ay yaqaaneen BBC waxaan leenahay madaxweynaha ku xigeenka Gashagwa wuxuu isku dayay hatta in dawladda wadankaas afgambiyo waxaan leenahay annagoo ah bulshada ku nool wajiyanood waxaan leenahay Gashagwa ha tago maxay yeelay muddada yar oo xilka hayay waxa isku dayay hatta inqilaab inuu dawladda ka dhaxsameeyo marka waxaan leenahay waad ogtiin baarlamaankii ayaa xoog lagu galay asaga ayaa ka dambeeyay waxa soo kulli shaqadaas asaga ayaa qabtay waxaan leenahay Gashagwa ha tago annagoona gacan siinayna imbiga wajiyanood Ibrahim Sanay ayaan ku kabanahay maxay yeelay qofka maanta wakiilshaynayo oo baarlamaanka noo joogo asaga codka asaga ayaan siinayna sidaas ayaan leeyahay anigoo Cabdicasiis Gardale Gashagwa ha baxo madaxweynaha ku xigeenka oo Rigathi Gachagua la dhaha oo wadanka kulli intaas xilkooda qaaday ahayd waxaas keenay inay dadka kala bixiyo oo dhaha qabiilo askeena soo annaka meesha qabiilo uma joogna wadankiina hal ahaada ayaan u baahneen laakiin asaga walaxas mar kastaba haleeya annaka maamuudin adaanahnay waxaan diyaar u nahnaa sida ay dadka qabaan aan qabnaa marka waxaan rabnaa inta Gachagua as galbada cidooda iska aad ilmihiisa madaxa u xiirta kaasoo dhibkiisa zaayidaas noqtay intaan ka badan muudul qaadan karna hatta way soo daahdi mar hore inaas galbada ahayd wixii intaan ku loorto loo sugayo meesha u taagnay ma kasayna soo hadda ma loo baahnaa iska galbada waxa la yiraahdaa Orra Xuseen Cabdulle waxaan ka food gareey godoma ward ma liiraha waxaan u food gareey maankii food gareynay waxaan food gareey Gachagua iyo William Ruto presidentiga wadanka laakiin hadda Gachagua waxaas Kenya ku bilaabay Kenya shan madaxweyne soo martay shan madaxweyne dibad president oo wadanka kala bixinaya qabiil dadku kala saaraya oo hadda ka hor wiliga lama arkin Kenya baarlamaankeeda la gala ciidan lagu soo dira ama dadweynaha la kiciyay oo baarlamaanka la gubo dib loo qaatay wiliga lama arkin aniga waxaan support gareynayaa Gachagua in mooni loo keenay ma bahaynba waxaan support gareynayaa National Assembly MPyalka oo maaragtay codka seengaray aan support gareynayaa Gachagua meel joogo Kenya waa isku diray wadankaas dib gili ama soo noqoneen reer Kenya waxaan dhiilay aniga reer wajeernood ahaan ninkaas ama soo noqoneen Northern Region dhammaala halaga xira ninkaas codka lagu bixiyay ama soo laabaneen dawlad xun dawlad la'aan dhaanta waxaan dhiilay Gachagua iska taga maxaa dibkiis wadanku u geystaa ka badan codka aan ku hadlayna waa midkii MPga wajeernood kaasaan ku kabanay wax alla ay noo soo qaadanay Gachagua ha taga marka waxaan rabnaa inay dawladda horta dhisnaato madaxweyne jiro madaxweyne ku xigeenka qaldanyo umada laga qabto intii u baahan intee waay dawladda waxa la rabaa dawladan qatar waay dawladda waxaan rabnaa inay jirto wada jir u jirto oo madaxweynaha haduu qaldanyo umada laga qabto ninkan la yiraahdo Gachagua dawladda Kenya isla socodsadeeda waa ka hor imaaday waxaas burburi dhibaas keenihaya aniga waxaan dhahaa Gachagua ilmihiisa u galbado ilmihiisa u xirto